waxaan idiin soo gudbinaynaa daawadayaal iminka war degdeg ah oo na soo gaaraya caawa dhiilo iyo jawi colaadeed ayaa ka jira Yurub. Arrintan waxay ku aadan tahay in dagaalka ka socda waddanka Ukraine laga yaabo in uu baaho. Waxay tani imaanaysaa iyadoo laba gantaal oo Ruushku uu riday la sheegay inay ku dhaceen magaalo ku taala waddanka Poland. Poland waxay ka tirsan tahay gaashaanbuurta NATO. axdiga shanaad ee gaashaanbuurta NATO-na waxa uu qabaa in haddii waddan ka mid ah gaashaanbuurta NATO la soo weeraro markaasi ay tahay in la difaaco. labada gantaal laba qof ayaa ku dhintay meesha ay ku dhaceen. Waxay ahayd beer ku taala magaalo la yiraahdo Berizowarow. Waa magaalo yar oo ku taala xadka Poland iyo Ukraine ay wadaagaan. qadar 20 kilomitir ayay u jirtaa magaaladan iyo goobta la duqeeyay waddanka Ukraine. Waxaana tani ay ku soo aadaysaa iyadoo maanta in ka badan 100 gantaal Ruushku uu ku riday magaalooyin kala duwan oo ku yaala waddanka Ukraine oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ee Kiev, magaalada Lviv iyada laftigeeda u dhow xadka waddanka Poland, magaalada Odessa ee dekedda ah iyo magaalooyin kale oo waddanka Ukraine ka tirsan. waxaan idin soo gudbinaynaa markaa si faahfaahsan axdiga NATO qodobka shanaad iyo qodobka afraad waxa uu qabo iyo walaaca arrintan laga cabsi qabo inay keeni karto. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa waaxda gaashaandhigga Mareykanka wixii arrintan ay ka tiri. sidoo kale wasaaradda difaaca ee waddanka Ruushku waxa ay ka tiri arrintan oo eegi doonaa. waxaan kaloo eegi doonaa oo aan idin haynaa wadamada ku yaala Yurubta bari oo horey uga mid ahaa midowga Sovieti iyo weliba gaashaanbuurta Warsaw. waxa arrintan ay ka yiraahdeen ayaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa. ugu horreyntii ilaa iyo hadda cid madax bannaan oo xaqiijin karta horta ma jirto gantaaladan ku dhacay magaalada ku taala waddanka Poland, laakiin warbaahinta iyo baraha bulshada waddanka Poland ayaa waxay soo warinayaan in laba gantaal ay ku soo dhaceen magaalo ku taala waddankaasi. isla markiiba golaha amniga qaranka iyo golaha wasiirada ee dalka Poland ayaa hadda waxay leeyihiin shir degdeg ah oo albaabada u xiran yihiin. sidoo kale Poland waxa ay dalbatay kulan degdeg ah inuu iskugu yimaado golaha ammaanka ee Jimciyadda Qurumaha Midoobay iyagoo dalbanaya arrintan in laga wada hadlo. waxa kaloo jirta waaxda gaashaandhigga ee waddanka Mareykanka ee The Pentagon-ka la yiraahdo afayeen u hadlay ayaa goor dhaweyta saxaafadda la hadlay. shir jaraa'id oo qabtay si kooban wuxuu u sheegay inay maqleen war dhiilo leh oo ku aadan in laba gantaal oo Ruushku uu riday ay ku dhaceen waddanka Poland. wuxuu yiri ilaa hadda ma hayno caddayn arrintan ku aadan, waxaana raadinaynaa buu yiri xogta arrintan ku aadan. inkastoo uu tilmaamay qatarta arrintan ay leedahay, laakiin wuxuu leeyahay intaan ognahay waxa weeyaan inaan baarayno sida wax u dhaceen isla markaasna aan eegi doono waxa soo baxa. sidoo kale waxaa jirta in wadamada Latvia, Lithuania, Estonia, Czech iyo Hungary oo dhammaantoodba ka tirsan gaashaanbuurta NATO ay hadleen isla markaasna ay garab istaag u muujiyeen waddanka Poland. Estonia weliba si cad bay u hadashay dowladdu. waxay leedahay waa in la difaaca waddan kasta oo ka tirsan gaashaanbuurta NATO haddii lagu sameeyo xadgudub. sidoo kale Czech ra'iisul wasaaraha Czech ayaa isna waxa uu dalbaday kulan degdeg ah inay iskugu yimaadaan golaha amniga qaranka ee waddankaasi. Lithuania iyo Latvia ayaguna waxay sheegeen inay tahay muhiim in difaaca NATO kor loo qaado durbaba la sameeyo jawaab arrintan ku aadan. laakiin waxaa jirta war arrintan ka duwan ayaa wuxuu ka soo baxay wasaaradda difaaca ee waddanka Ruushka. isla markii warkan uu soo baxay iyo eedaynta lagu eedeynayo Ruushku inuu gantaalo ku garaacay magaalada ku taala waddanka Poland ayaa wasaaradda difaaca waddanka Ruushka waxay tiri arrintan waxay tiri waa ku talagal la doonayo in xaaladda lagu sii kiciyo isla markaasna aanay waxba ka jirin. beenintan hadda uu beeninayo Ruushku in gantaaladan ay ku dhaceen waddanka Poland waxa la leeyahay waa wixii hore u sameyn jiray. inkastoo wasaaradda difaaca Ruushka ay isdifaacayso ay leedahay arrintan waa ku talagal la doonayo gardarro in loo geysto waddanka Ruushka iyo in markaasi xaaladda lagu sii kiciyo. laakiin
waxa soo baxaya waxa weeyaan ilaa hadda aynu ognahay in laba qof ay dhimatay beertaasi ku taalla magaaladaasi u dhow xuduudda Ukraine iyo Poland in madfacu ku dhacay laba gantaal ay ku dhacday laba qofna ay dhinteen meeshana ahayd beer sawirro kala duwan ayaa baraha bulshada iminka la soo dhoobaya oo laga arki kara oo ku aadan sida wax u dhaceen haddaba waxaan isweydiinaynaa marka arrinta walaaca maxay tahay walaaca arrinta keenaysa waxa weeyaan Ukraine waan ognahay reer galbeedka iyo wadamada Mareykanka ka mid yahay aad baa loo difaacay hub badan dhaqaale badan baa la siiyey laakiin dagaalka Ukraine iyo Russia ma ahayn dagaal u dhaxeeya Russia ama Ruushka iyo wadamada NATO sababtoo ah Ukraine kama mid ah NATO midowga Yurubna kama tirsana marka axdiga NATO qodobka shanaad ayaa waxa uu qabaa haddii waddan ka tirsan NATO la soo weeraro in wadamada NATO oo dhan ay difaacaan marka waxa la leeyahay marka haddii ay caddaato in Ruushku uu ka dambeeyay arrintan maxay noqon doontaa jawaabta NATO ay bixin doonto horey ma loo isticmaalay marka qodobkan ayaynu isweydiinaynaa waxaan kaloo ka hadli doonaa heshiiskii u dhexeeyey NATO iyo Russia waxa uu arrintan ku aadan yahay marka ugu horeysa sidii loo dhisay gaashaanbuurta NATO hal mar ayaa qodobkan la isticmaalay Mareykanka ayaana isticmaalay 2001 markii la weeraray Mareykanka gaar ahaan daarihii mataanaha ayaa Mareykanku qodobka shanaad wuxuu codsaday in la isticmaalo taas waxay keentay marka in wadamada NATO oo dhan ay ka qayb qaataan howlgalkii ka dhacay waddanka Afghanistan oo lagu weerarayay Osama bin Laden iyo xogagii Taliban isla markaasna Mareykanku uu la wareegay waddanka Afghanistan marka qodobkaasi sidaas weeyaan waxa laga yaabaa marka Poland inay dalbato in NATO ay isticmaasho qodobka shanaad iyadoo taa la leeyahay waxay keeni kartaa isku dhac dhex mara NATO iyo Ruushka laakiin dad khubaro ah ayaa si kale arrinta u dhigay waxay leeyihiin waxay u badan tahay NATO in ay bixiso jawaab ku aadan inaysan u dul qaadan doonin haddii waxaan kale ay dhacaan Ruushku ama ha beeniyo ama ha qirto waxaa kaloo soo baxaysa war ku aadan in Ruushka laga yaabo gantaalihiisu inay shiish wareereen oo halkaas ay u gudbeen laakiin bartilmaameedka u ahaa waddanka Ukraine taasna waxaa la leeyahay waa arrinta soo baxaysa marka waxaa jira qodob afraad baa jira marka oo axdiga NATO u dhigayo qodobkaasi waxa uu leeyahay haddii waddan ka mid ah NATO uu u baahdo in la isticmaalo qodobkaasi waxa weeyaan waa in macluumaadka sirdoonka la wadaagaa waa in waddankaasi nidaamka difaaca loo sameeyaa waan ognahay Mareykanku gantaalo waaweyn oo difaaca ayuu ku rakabay waddanka Poland iyo wadamo badan oo ku yaala bariga Yurub oo Latvia ka mid tahay Estonia ka mid tahay Lithuania ay ka mid tahay marka hadda waxa la leeyahay waxa laga yaabaa Poland inay dalbato caawimaad dheeraad ah iyo in la difaaco oo qodobka afraad intii qodobka shanaad la isticmaali lahaa in qodobka afraad la isticmaalo ayaa dhici karta horey qodobkan ma loo isticmaalay ha waxa ugu dambeeyay waddanka Turkiga ayaa isticmaalay dhowr sano ka hor kadib markii Syria uu duulaanka ku qaaday qaybo ka tirsan gaar ahaan waqooyiga Suuriya oo uu sheegay in laga soo weerarayo oo jabhadaha Kurdiyiinta halkaasi ay weerar ku sameynayaan marka qodobkaas marka xilligaas ayaa la dhaqan geliyay in afraad in Ruushka in waxaan ka wadaa Turkiga in la taageero marka taasna hadda ka hor bay dhacday waxaa jira marka qodob kale ama heshiis u dhaxeeyay NATO iyo Ruushka ayaa jiray oo markii wadamadan horey midowga Soviet uga tirsanaa ay ku soo biirayeen gaashaanbuurtan NATO iyo ama midowga Yurub ay ku soo biirayeen waxaasi oo dhan waxaa jira heshiis Ruushka iyo NATO u dhaxeeyay kaasi waxa uu dhigayay in wadamadan ku biiraya NATO ay horey uga mid ahaa midowga Soviet ama Warsaw ka mid ahaa in aysan qatar gelin amniga waddanka Ruushka oo ciidamo iyo qalab military oo qatar gelin kara Ruushka aan la keenin wadamadaasi waxa kale oo qodobkaasi heshiiskaasi u dhigayay Ruushku inuusan weerari karin waddan ka mid ah wadamada NATO haddii ay weeraraanna jawaab la siin doono laakiin heshiiskaasi wuxuu burburay 2014 Ruushku markii uu weeraray Ukraine una ka goostay gobolka leerada Crimea ayaa heshiiskaasi meesha ka baxay taasi waxay keentay marka in wadamadii yaryara
oo ay ka mid yihiin Latvia iyo Estonia iyo Lithuania dhammaantood marka ay dalbadeen in qatar ay ku jiraan oo ay codsadeen markaa NATO inay difaacdo taas marka waxa weeyaan waxa la leeyahay hadda looma baahnaba qodobkan shanaad in la soo qaato oo horeyba iminka waxaan ognahay wadamadan Poland iyo wadamadan kale hadda aan soo tirinay in Mareykanka iyo reer galbeedku ay geeyeen iyo NATO ciidamo xoog leh ay geeyeen dhowr maalmood ka horna waxaan ogeyn in dhowr toddobaad ka hor baan ula jeedaa waxaa jiray carbis xagga militariga oo laga sameeyay wadamadan oo NATO ay sameeynaysa marka warkan waa war degdeg ah oo hadda soo dhacaya wax badan baan ku soo kordhi doonaa waxaynu sugaynaa waxa weeyaan xaqiijin ilaa iyo hadda cid madax bannaan oo xaqiijin karta ma jiraan sida wax u dhaceen marka waxaynu ka war sugaynaa waxa weeyaan dawladda Poland warka rasmiga ay soo saari doonto NATO waxay dhihi doontaa Mareykanka waxay soo gudbin doonaan Ruushka laftigiisa waxa uu soo gudbin doono laakiin taa waxaa ku siin lamaasan warbaahinta iyo baraha bulshada oo arrintan aad iyo aad u hadalhaya walaac weyn abuuri karta oo leeyahay ma waxay horseedi doontaa dagaal dhexmara NATO iyo Ruushka maxaaladda ay uga dari doontaa adduunka markii horeba dagaalka Ukraine saameyn culus oo ku yeeshay maxaa imaan kara ayaa la isweydiinaya marka si aad u heshaan wararka ugu dambeeya iyo xogta rasmiga halkan telefishinka HBN ayaad nagala soconaysaan waana ku mahadsantihiin daawashadeena nabadgelyo